shanaya waxa uu sameeyay goobo biyo qabadyo ah si marka ay roobabka da'aan ay biyaha goobahaasi u galaan isla markaana la yareeyo saameynta uu roobabka ku yeelan karo caasimadda Muqdisho balse iyadoo aan lala dagaalami karin nimcada eebbe waxa uu roobabkaani da'ayay muddo 9 bilood ah oo isdaba joog ah marka laga reebo 45 cisho ah oo uusan roobka intaasi oo dhanka kale culeys ku noqotay goobihii biyo qabadyada ahaa ee hore loo sameeyay maamulka gobolka Banaadir iyo khubaro heer caalami ah daraasad waxa ay sameeyeen oo ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa biyo deegaanada caasimadda magaaladan ay u heli lahayd biyo mareeno casri ah system drainage maadaama kuwii yaraa ay hore u lahayd caasimadda ay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxaana xaqiijinaynaa in daraasadda lagu ogaaday sida xal loogu heli karo biyo mareenada balse qiimeynta la soo saaray ay noqotay 337 milyan oo dollarka Mareykanka bangiga adduunka World Bank oo daraasadda nala sameeyay waxa ay ballan qaadeen inay bixinayaan 37 milyan haddaba dawladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka Banaadir wuxuu qirayaa inaysan xilligaani awoodin helidda 300 oo milyan sida daraadeed waxaan baaq degdeg ah u direynaa madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya dawladaha saaxiibka la ah Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah in ay gacan nagu siiyaan sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha la xiriira biyadega caasimadda magaalada Muqdisho lana dhiso biyo mareeno casri ah waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinaynaa agaasinka howlaha guud iyo agaasinka nadaafadda iyo bilic soo celinta oo habeen iyo maalin u taagan in biyaha ay ka dhuraan goobaha ay biyaha fariistaan isla markaana ay bilicda iyo nadaafadda caasimadda ka shaqeeyaan balse bulshada ku dhaqan caasimadda waxaan kaga cudur daaranaynaa in marka aan biyaha qaadno ama aan qaadayno ay roobabka nagu soo dulda'aan taasi oo aad marqaati ka wada tihiin culeysna ku ah howlwadeennada ka shaqaynaya biyo dhaaminta iyo nadaafadda caasimadda magaalada Muqdisho sidaa daraaddeed annagoo garowshiye ka bixinayna adkaysiga iyo culeyska bulsho ahaan idin haysta ayaa waxaan qiraynaa in mid taa la mid ah uu maamulka gobolka Banaadir haysto xaaladda aan ku jirnana ay u baahan tahay dulqaad isku samir adkaysi iyo wada shaqayn dhab ah iyadoo aan ka maqnayn in aan isku wada gurmano oo maamulka gobolka Banaadir keligii aan lagu haleynin marxaladda lagu jiro loona aqoonsado marxaladani mid qaran waxaan sidoo kale baaq u direynaa bulshada ku dhaqan caasimadda in marxaladdan adag ee gacan nagu siiyaan sidii aan ugu gudbi lahayn